sidee xogta WhatsApp-kii hore aad ku soo ceshan kartaa haddii uu taleefankaagii kaa lumay ama lagaa xaday. Inta aadan soo ceshan xogta WhatsApp-ka, ma oofisay ama ma samaysay labadii shuruudood ee lagaa baahnaa si aad xogtaada WhatsApp-ka u soo ceshiso. Labada shuruudood waxay yihiin: WhatsApp-kaada ma ku xirnaa Gmail aad adiga leedahay, WhatsApp-kaada ma kugu xirnaa. Midda labaadna waxay tahay backup ma ku lahaa, haddii ahaan lahayd backup bilo ah ama backup isbuucla ama mid maalinla ah. Haddii uusan kugu xirnayn Gmail account, ma soo ceshan kartid xogtii WhatsApp-kii hore ee kaa lumay si walbo oo aad samayso. Hadda waxaan rabaa inaan ku tuso qaabkii aad u gashan lahayd Gmail una samaysan lahayd backup. Haddii ay tahay markii kugu horeysay ee aad ku xiranayso Gmail, waxaan kaloo rabaa inaan hadda sameeyo in aan ka guuro taleefankan una guuro taleefan kale. Waxaa laga baahan yahay inaan sameeyo waa inaan backup gareeyo. Ani hadda Gmail waa igu xiran yahay, waana ii backup gareysan yahay oo backup isbuucla ayaa ii saaran. Si aan xogteeda u helo marka, waxaan sameynayaa in waqtigan la joogo inaan backup gareeyo, kadibna aan ka guuro taleefankayga. Haddii uusan adiga wax Gmail ah kugu xirnayn iyo backupna ku samaysnayn, waxaan ku tusayaa sambalkaas ayaa raaci doontaa sidaad Gmail u gashan doontid iyo sidaad u backup gareysan doontid. Sambalkan aan rabo inaan ku tuso waxaa waaye waa qaabkii aad Gmail-ka ugu xiran lahayd. Ani hadda WhatsApp-kayga Gmail waa igu xiran yahay, waana ii backup gareysan yahay. Sidee marka Gmail ugu xiranay? Koodi hore waxaad tegaysaa WhatsApp-kaaga, waxaad ku dhufanaysaa qaybta kore corner-ka midigta 3 dhibcood. 3 dhibcood markaad ku dhufato waxaad kasii dooranaysaa setting, waxaad kasii dooranaysaa qaybta ay ku qoran tahay chats. Kadib chatskaada waxaad ka xulanaysaa oo ka dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay meesha u dambeyso ah chat backup. Kadib markaad chat backup ku dhufato, waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay Google account. Hadda kuma xirno wax Gmail ah, mana backup gareysno. Waxaan ku tusayaa qaabka loo geliyo Gmail-ka iyo qaabka backup-ka loo sameeyo. Hadda marka aan gelino Google account, haddii uu taleefankaaga Gmail kugu jiro, asaga ayaa kuu soo saari doona. Wuxuu ku dhihi doonaa Gmail-kan ma u rabtaa? Maya hadday tahay aad rabto inaad Gmail kale aad geliso, waxaad taabanaysaa add account. Hadda waxaan dooranaynaa Gmail-kan markuu qaato include video-gan waxa waaye ma jireen wax muuqaala lagu diray ama lagu soo diray. Hadday jiraan oo rabto inay kuu soo noqdaan, tig ayaa saaraysaa. Tig markaad saarto kadib waxaad leedahay backup samee. Intaadan backup sameyn, waxaad xulanaysaa backup bilo maarta mid isbuucla mise mid daily. Waxaad ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay backup to Google Drive. Kadib wuxuu ku leeyahay intaan mid xulo never oo ah wax backup ma rabo. Hadhow taleefankayga hadduu iga lumo aan rabo inaan soo ceshto xogtii WhatsApp-ka, ha iga baxaan hadday rabaan. Midka labaad waxa waaye only when I tap backup, keliya markii aan u baahdo inaan backup sameeyo. Mid saddexaad waxa waaye waa daily, mid kalena waa weekly, midna waa monthly. Adiga midkii aad rabtid inaad backup samaysato ayaad ka xulan kartaa. Hadda waxaan xulanaynaa mid weekly ah. Isbuucii mar ha i weydiiyo. Kadib waxaan leenahay waa Gmail-kaas ayuu noogu samaysan yahay. Gmail-ka ku dhufanaysaa. Hadda wuxuu ku leeyahay marka backup garee. Backup ku dhufo. Backup hadda haddaan ku dhufto, biri ka maalinteeda asaga ayaa wuxuu isku diri doono backup. Qaabkaas ayaa hadhow u samaysan kartaa Gmail iyo backup. Haddii aad rabtid marka inaad ka guurto taleefankan una guurto taleefan kale, aan rabo inaan hadda aan sameeyo, sidee xogtii aad ku soo ceshan kartaa? Waqtigan la joogo waxaad samaynaysaa marka backup
backup markaa ku dhufato kadib asaga ayaa isbaag gareyn doona. markii uu bagane waad ka baxaysaa, waxa u guuraysaa taleefanka kale ee aad rabtay. saad u jeedaan hadda wuxuu qaatay backupkii, waxaan u wareegi doonaa taleefankeeni kale.